بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا وروحي عالم كنغا سو غاري oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe telefishinka Somali Cable ee magaalada Muqdisho qodobada warkeena ugu door korona waxa kamida siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii kala duwan ee dalka Soomaaliya ayaa xalay la weeraray iyadoo haatan uu ku jiro gacanta ciidamada nabad sugidda wasiirka amniga iyo xeeryaalaha guud ee qaranka oo ka warbixiyay sababihii keenay in la weeraro Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhinaca kale waxay u digeen siyaasiyiinta iyo dadka doonaya inay shirarka ku qabsadaan hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho shirar kala duwan ayaa ka dhacay hoteelada Muqdisho taasi oo ka dhalatay weerarkii lagu qaaday siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah waxa uu fadhiisin uga dhigtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga iyadoo maantana la arkayay isagoo wata dharka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wararka caalamka daawadayaal waxa kamid ah dhismo ku yaala magaalada Afghanistan ayaa lagu soo waramayaa in ay rasaasi ka dhacayso kadib markii kooxo dableeyahay ay weerar dhismahaasi ku soo qaadeen waxa ka soconaysa wadanka South Africa tirinta codadka xisbiga ANC ee talada haya iyadoo ay tartamayaan madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi iyo haweeney wasiir hore uga soo ahayd xukuumadii South Africa intaasi waa qodobadii warkeena ugu door korona haatan daawadayaal u diyaar garooba qodobada warkeena ka harsan